Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dhamaan asxaabta ku xiran Abeeka Official and YT Solution. Maanta waxaan muuqaal idinkugu talagalnay muuqaal cajaa'ib ah. Muuqaalkaas oo ah sida Facebooka ama Facebook lagu sameeyo oo labo page hadaad leedahay ama saddex in ka badan hadaad leedahay waa inaad isku darsan kartaa oo waxaas oo dhan intii like iyo dhamaan follow ka haysatid waa inaad ka wada dhigataa hal page. Page-kaas intuu follow haystay iyo midka intuu follow haystay waa inaad isku keeni kartaa. Marka muuqaalkan maanta waxaan u hadli doonaa sida labo Facebook page ama in ka badan sida la iskugu daro. Marka muuqaalkeena maanta waxaan idinkugu talagalnay sida Facebook page merging ama sida Facebook la iskugu xiro ama la iskugu furo oo lagu mitalo one page. Insha Allah muuqaalkan intaan u gudagalin ka hor waxaan ka codsanaynaa haddii aad channelkan ku cusub tahay please ina subscribe soo helatid sidoo kale sidoo maaragtay xog waliba cusub sida ay ku soo gaarto waxaad sameynaysaa jalaska yar oo dhanka midigkaaga soo qabanayo furo sidoo kale sidaad ula socotid xog waliba oo channeladaas la soo geliyo insha Allah billahi kareem. Waxaan ku leeyahay muuqaalkan inuu ku cajiib gelin doono anaaba og أنا ku balan qaadayo oo aadna ka heli doontid siina share garay asagana muuqaalkan adoo ay biiraado asxaabtaadana la sii wadaag hadal badan hama buush. Marka waxaan ku leeyahay aan isla daawano muuqaalkan yar oo gaaban idinkugu talagalay. Muuqaalka dan guda galno ugu horreyn horta waxaad tagi doontaa Google Chrome. Facebook-gaaga ayaa soo kacsan doontaa ana hada Facebook uu kacsan yahay uu diyaarsan yahay. Marka Facebook markuu saan qaabka uu kugu imaado waxaad tagi doontaa saddexdaas dhibcood sida uu wada jeedno meeshan soo u jeedin meeshan waa Rabbaani Xasan waa ugu horeyn waa inaa page-kaaga same name inay noqdaan ama magacyo isku mid ah waa inay yeeshaan. Labadaas magac isku mid markay yeeshaan Facebook-gaaga wuxuu noqon doonaa isku furi doontaa asaga ayaa kugu xojin doona. ugu horeyn Facebook-gaas ayaan ku dhufan doonaa. Facebook-ga markaan ku dhufano waa soo guda galnay meesha soo idil uma baani waxaan u baahanahay qaybtan ay ku qoran tahay settings. Waxaan ka sameeynaynaa mobile waaye settings oo baahantahay settings markaad tagtid kadib waxaad ku xulan doontaa waa general setting markaad ku xulatid uu soo rajinaya cabaar kadib xoogaa English translate English toos ku geenayo. Marka si toos English markuu ku keeno waa kina qaabkan meeshan u baahanahay meel kale maahan waxaad fiirsan doontaa meel ay ku qoran tahay merge pages sida page-ka la iskugu furo. Merge pages-kaas ayaan ku dhufan doonaa. Meeshan password ayuu baahan yahay bal marka password-ka gashan doonaa. Password-ka markaan soo geliyay wuxuuna i keenay habkan meeshan ayuu ku keenayaa. Translate English insar meeshan ayuu ku keeni doonaa. Meeshan markuu ku keeno wuxuu ku dhahayaa choose source page to merge into destination page. Source page waxa this page will be deleted after the page merging. Markii aad merging isku sameeysid midkan waa la delete doonaa walahi district page loo dhahay preference waa mid uu ku xadidi doona after the page merging. Marka page-ka ugu horeeya magaciisa halkan ayaan ku qoran doonaa asoo ku soo qabanayo. Waa kina sida u jeedid Rabbaani 11373 la waysta kan 3000. marka midka aan rabno inaan ka dhigano midkan waaye Rabbaanigaas oo 11000 haysto waxaan ka dhigi doonaa midka oo lagu dari doona midkan kalena waxaan ka dhiganaynaa midkii la isku dari lahaa. Marka sida markuu qaabkan u sameeysid keep in the mind that kan hadda wax waaye you can only request waxaad codsan kartaa oo kaliya loo dhahay merging if you are admin for both pages. labada page waa in adiga maamula ka tahay admin waa in maaragtay maamula ka tahay. The pages you merging must represent wuxuu matala the same things waa inay maaragtay ay yeeshaan wax isku mid ah and have identical names iyo magacyo isku mid ah. Merging pages cannot be undone all day. Once you have started
the process markuu bilaabo. marka insha Allah intaan xogtan ina akhrisatid adiga ayaa lagaga baahan yahay. marka aniga hadda shaqada ayaan sii gudagali doonaa. meeshan ay ku qoran tahay go ahead, horey u soco ayaan ku dhufan doonaa. markii uu inoo soo qabtay wuxuu dhahay confirm merge request aloo dhahay Rabbani Xasan iyo Rabbani Xasan. marka midka hoose ayaa rabnaa inaan ku soo wada darno dadkii oo idil. marka waxaan leenahay request merchant wuxuu ku dhahay successful submit a merchant request, please check email for updates. waxaadna ma ahooysaa in maaragtay emailkaaga oo ku soo dhacay update-kan. insha Allah binilaahi kariim maanta muuqaalkeena uu gaabnaa intaasna awaad lidoonay wax faa'iido badan oo faa'iido dhaaftay waad ka faa'iiday muuqaalkan sidaan rajeynayo. wax badan oo kugu muddo maskaxdaada ka dhawaaqayay sida u sameysaa qaabka yeeshaa oo ahaa ayaa maanta ku fududaaday. marka waxaan ku leeyahay haddii aad channelkan uu ka caawiyay muuqaaladaas ama muuqaalo ka duwan horay aad ugu daabatay oo wax badan aad uga faa'iiday, waxaan ku leeyahay please asxaabtaada la sii wadaag. haddaad ila joogtay aadan kaaga mahadcelinayaa. haddaad maanta ku cusub tahay oo maanta soo booqatay channelkeenana please waxaan ku leenahay nagu soo dhawow gacmo furan qalbi furan. wax waliba oo qof bini aadin ah lagu soo dhaweeyo midda ugu quruxda badan ugu qanacsan badan ayaan kugu soo dhaweysan doonaa insha Allah. marka waxaan ku leeyahay dhammaan inta ku xiran YT Solution and Abeeka Official. waxaan idin leeyahay dhammaantiina waqtigiina ka faa'iideysta insha Allah binilaahi kariim. inta uu kulmi doona muuqaal caynkan oo kala. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. see you another next video insha Allah. goodbye.